war degdeg ah daawadayaal taliyihii hore ee ciidanka markaasi asluubta Soomaaliyeed shub oo gaaray degmada Luuq durbaba waxa uu halkaasi ka bilaabay abaabul ciidan iyo sidoo kale qorsho halis ku ah aadan madoobe taliyihii booliska gobolka Bay ninkan lagu magacaabo Sadiq Doodisho oo xabsi guri ku ah magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidankii taabacsanaa lafta gareen oo haatan gaaray degmada Luuq ee gobolka Gado qorshihii ugu cuslaa ayay halkaasi ka soo abaabulayaan iyadoo markaasi halkaasi taliye shub uu gaaray abaabul ciidan oo aad u xoogan kaasi oo ku soo wajahan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya aadan madoobe caawa aan kula hadlayo waxa uu markaasi tagay xero markaasi ku taala gudaha magaalada Baydhabo taasi oo markaasi ay joogan ciidanka Itoobiya filla Baydhabo caawa boorsadiisa ayuu ka qaatay waxa rabaa markaasi cabsida soo wajahday aadan madoobe xariga markaasi Sadiq Doodisho oo markaasi xabsi guri ku ah magaalada Baydhabo iyo taliye shub oo abaabul ciidan ka wada degmada Luuq ee gobolkaasi Gado ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal balse tabinteena tooska ah caawa intaan u gudugalin daawade hadii ay tahay markii kugu horeysay aan soo booqato fadlan YouTube-keena subscribe saar oo gambalelka furo muuqaalkana like saar si share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeb waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahasani daawade haddii aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya taliye shub oo ah markaasi taliyihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa caawa lagu soo waramayaa xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno iyo sidoo kale ilo xog ugaal u ah oo markaasi ka waramaya taliyaha in caawa markaasi uu gaaray degmada Luuq ee gobolka Gado durbaba Luuq waxa ka bilowday markaasi abaabul ciidan oo aad u xoogan iyo sidoo kale qorsho halis ku ah aadan madoobe iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya taliye shub oo markaasi taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan lafta gareen sidoo kalena ahaa seedigiisa ayaa waxa lagu soo waramayaa ninka lagu magacaabo Cabdicaziz Maxamed Xasan lafta gareen maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaayeen magaalada Nairobi Cabdicaziz lafta gareen ayuu ka soo qaatay qorsho halis ku ah aadan madoobe durbaba qorshihii waxa uu ka hirgelinayaa magaalada Luuq ee gobolkaasi Gado iyadoo halkaasi markaasi ay joogaan mas'uuliyiin sarsare oo markaasi ka tirsanaa xisbiga nabad iyo sidoo kale nolol oo markaasi ka tirsanaa taliye shub qorshaha markaasi caawa oo markaasi halkaasi ka bilaabay waa qorsho halis ku ah dowladnimada markaasi Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Sheekh Aadan Madoobe durbaba deegaanka markaasi lagu magacaabo Yurkud oo markaasi u dhow Luuq ee Gado waxa gaaray markaasi saraakiil markaasi ciidan oo markaasi ka tirsanaa kuwa Cabdicaziz Maxamed Xasan lafta gareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo waxa ayna markaasi saraakiishaasi halkaasi u gaareen in markaasi halkaasi ay ka soo abaabulaan weerar halis ku ah markaasi aadan madoobe oo ay doonayaan inay xoog kaga saaraan villa Baydhabo oo caawa markaasi isaga hayaamay guud ahaanba aadan madoobe ayaa caawa lagu soo waramayaa in xero ciidan oo markaasi ay leeyihiin Itoobiya oo ku taala markaasi gudaha magaalada Baydhabo oo caawa jiifanayo waxaana lagu soo waramayaa in ammaankiisa aad loo akeeyay kadib markii walaac xoogan oo markaasi ka muujiyay ciidankii taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan lafta gareen oo sidoo kale marba marka ka sii dambeeysa ama habeenka ka dambeeysa weerar toos ah ku soo qaadaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya caawa Sheekh Aadan Madoobe cabsidii ugu weyneed ayuu soo wajahday waxa uu markaasi naftiisa ku aaminay ciidankii Itoobiyaanka ahaa ee markaasi ku sugnaa magaalada Baydhabo xero ay leeyihiin ayuu caawa ku hoyanaya taliye shubna waxa uu markaasi kulamo kala duwan ka wada degmada Luuq ee gobolkaasi Gado halkaasi ayaana lagu soo waramayaa abaabulkii ugu xoognaa oo markaasi kaga soo abaabulayo kaasi oo ku soo wajahan aadan madoobe iyo sidoo kale filada markaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya taliyihii markaasi u magacaabnaa booliska ee qaybta gobolka Bay oo xilkii dhawaan laga qaaday ayaa caawa waxa lagu soo waramayaa in isaguna xabsi guri looga dhigay markaasi magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilkii ugu horeen xilkii ayaa laga qaaday kadib markii sidii rabay looga shaqeystay oo calooshiista ayuu u shaqeystay ninkaasi markii uu isdhahayna xilka waa ku nagaadi doontaa oo waa sii hay doontaa sanado kala duwanna waad hay doontaa maadaama aadan madoobe oo markaasi la wareegay talada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya intaasi loogama sibina xilkii waa laga qaaday caawana xabsi guri ayaa looga dhigay markaasi
guri ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sababta ugu weyn ee markan lagu caawan markan in xabsiga guriga looga dhigay ninka lagu magacaabo Sadiiq Doodisho ayaa ah markaasi in uu xiriir dhow la sameeyay taliye shub oo ah markaasi taliye asluubta sidoo kalena markaasi saaxiibo dhow ay yihiin ninkii markaasi xoog markaasi Baydhabo loogu saaray ee Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen waxa lagu soo waramayaa in ay ka shakiyeen Aadan Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud dabadeedna xilka ayaa laga qaaday intaasi loogama keenine caawa xabsi guri ayaa looga dhigay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay xilkii markaasi uu ka wareejiyay taliyaha cusub ee markaasi loo soo magacaabay saraakiil sarsare oo markaasi ka tirsan ciidankii taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo iyaguna caawa waxa ay gaareen deegaanka markaasi Yurkud waa warkaasi waa isbahaysanayaan taliishuna waxa uu gaaray Luuq marka Laftagareen iyo kooxdiisa abaabul xoogan ayay ka soo sameynayaan gobolka Gadow waxaana lagu soo waramayaa in Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen uu haatan garab ka helayo Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaana lagu soo waramayaa markaasi ciidan ka tirsan kuwa Jubbaland kuwaasi oo magacooda loo soo gaabiyo markaasi Duufaan in ay iyaguna qayb ka noqon doonaan weerarada markaasi lagu soo qaadayo magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen hogaamiyihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed awoodiisa markaasi aad ayuu soo muujinayaa marba marka kasii dambeysana markaasi waxa uu helayaa garab iyo gaashaan maadaama caawa uu taliye shub uu gaaray degmada Luuq ee gobolkaasi Gadow haddii Axmed Madoobe uu Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen garab siiyo maxaa dhici kara marka Cabdicaziz Laftagareen maxuu uu sameyn karaa laba mid ayay noqonaysaa in magaalada Baydhabo ay noqoto in habeen walba weerar lagu soo qaado Aadan Madoobe iyo ciidankiisa habeenka sana Baydhabo dhimasho iyo dhaawac ay ka dhacdo amase in la weeraro ciidankii taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen oo xirooyin ku leh duleedka magaalada Baydhabo waxa ay noqonaysaa markaasi in ciidanka Laftagareen qaarna la laayo qaarna nolosha lagu soo qabto dabadeedna Aadan Madoobe uu xilka si nabad ah ku joogo sidoo kalena uu maamulo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka reer Koonfur Galbeedna iyaguna waxa ay doonayaan markaasi in ay helaan nabad maadaama habeenadii ugu dambeeyay ay maqlayeen hardanka iyo sidoo kale dhawqa jugta culus oo ka dhaxdhacaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida uu rabo ayuu ka sameystay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya xoog ayuu Cabdicaziz Maxamed Laftagareen ugu saaray Aadan Madoobe oo isagu gadaal ka riixayo misana shaatigiisa uu talay ayuu geystay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sadiiq Doodisho oo ahaa afhayeenkii hore ee booliiska waxa uu magacaabay taliyaha qaybta booliiska gobolka Baay 2 bilood wax ka badan meeyna xilka waa xilkii waa laga qaaday nin cusub oo sargaal cusub ayaa la soo magacaabay caawana markaasi xabsi guri ayuu ku yahay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya siyaasiyiin fara badan oo markaasi ka soo jeedo Koonfur Galbeed waxa ay leeyihiin waa kaas ka xaabi ay leeyihiin shalay dadkaadii iyo dalkaadii iyo deegaankaadii ayaa lagu adeegsaday adiga ayaa iska soo hormariyay xasuuq ayaad ka geysatay Baydhabo dad shacab ah ayaad leesay magaaladii waxa ka dhacay qalalaaso iyo hoog dad shacab hantidooda ayaa la dhacay ka xaabi caawana xabsi ku yaala magaalada Baydhabo ayuu xabsi guri ku yahay oo sidoo kale dawladdiina xilki waa ay ka qaaday hadda xilna ma haayo xukunna ma haayo talana ma haayo dakhliina ma haayo xabsina waa ku jiraa dadkiisana waa isku diray meel dambe oo markaasi lagu soo dhaweynayo ma jirto Aadan Madoobena caawa markaasi cabsi xoogan ayaa soo wajahday waxaana lagu soo waramayaa sida ilo xog ogaal u inoo xaqiijiyeen inuu isaga hayaamay filada markaasi Koonfur Galbeed oo waxa uu isku aaminay ciidankii Itoobiyaanka xiro ay leeyihiin ayuu caawa saxanaya maadaama uu markaasi uu ka cabsanayo in ciidanka Laftagareen ay weerar ku soo qaadaan markaasi magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya daawadayaal wixii warar ka soo kordho ama macluumaad ama wax walba oo ku saabsan xaaladda Koonfur Galbeed abaabulka taliishub uu ka wado gobolka Gado saraakiil sarsare oo markaasi Laftagareen taabacsan oo gaaray iyaguna Gado iyo ninkii gobolka Baay u qaabilsanaa booliska oo xabsi guri ku ah xogaha iyo